saad sheegteen dibadejin baad rabtaan dowlad deegaanka Soomaaliduna aad baan runtii ugu faraxsanahay saad uga mahadnaqdeen iyo dadaalkay muujinayaan sababtoo ah wax hal mar dhibaatadiinu ay maanta kaliya ku koobnaan maahe haddii la rabo in dhibkan laga baxo waa in si fiican loo daraasadeeyo qofna laga tegin marka dowlad deegaanka uu madaxweynaha Mustafa ugu horeeyo aad baan uga mahad celinayaa inaad qaybtoodii libax ka qaataan annaguna ka federaal ahaan inagama maqnin hariya habeen dowladda deegaanka saan ku caawin lahayn in ku siin lahayn caawimaad idinka dib dejintiina iyo waxbarashadiina iyo caafimaadkiina looga hortago taana waa midaan ku hol jirno waxaan idin ballan qaadayaa inaan caawin doono oo aanan ka hadhi doonin hawshiina waana ogahay inaad u qalantaan iniga iyo carruurtiinaba nolol tan ka fiican ayuu yidhi mudane Cusmaan Dion. And I wanted first to pass to them a message of compassion and a message of solidarity. Waa markii ugu horeysay aan soo booqday deegaanka Soomaalida iyo xeradani Qoloji waxaanan rabaa in aan gudbiyo fariin xambaarsan in aan garabkiina nahay iyo in aan dareemayno nolosha aad ku nooshihiin waxaanan si fiican u dhageystay caqabadaha aad soo jeediseen oo dhan waxaanan aaminsanahay inaad u qalantaan nolol ka qiimo badan tan aad hadda ku nooshihiin taasina waa mid hadda halkan keentay sababtoo ah waxaan halkan u imid in aan fahmo indhahaygana ku arko caqabadaha nololeed ee ka jira halkan waxaan maamulka deegaanka gaar ahaan madaxweyne Mustafa aan kala shaqayn doonaa qaabka aan u aragno inuu xalku yahay mana rabno in aan ku hordhaco waxa uu xalku yahay sababtoo ah waxaan rabaa in aan marka hore si buuxda u fahmo dhibaatooyinka iyo caqabadaha meesha ka jira balse waxaan idin ballan qaadayaa in aan si buuxda ugula shaqaynayo madaxweynaha deegaanka xal u helida dhibaatooyinkani anigoo ka duulaya heshiisyada nagala dhaxeeya dowladda federaalka qaabka ugu habboon ee aan wax kaga qaban karno xalna ugu raadin karno ayaynu wajahaynaa waxaan idin ballan qaadayaa in aan tallaabo ula socon doono xaaladiina waxaana laga yaabaa in aynan xal buuxa idin heli karin balse waxaan isku dayayaa in aan idinka caawiyo dhinacyo kala duwan waxaan rajaynayaa haddii alle idmo in aan mar kale idin soo booqan doono Qoloji ayaa ah goobta barakacayaasha ugu badan deegaanka ay ku sugan yihiin waxaana ku nool qoysas gaaraya 13,920 qoys ilaa haddana waxaa dib u dejin loo sameeyay 698 qoys qoysaskaas oo lagu kala celiyay Gooljanno degmada Wardheer gaar ahaan tuulada Roobda-ay degmada Tulle Guuleed iyo Burqod welina way socotaa sida uu xafiiska maareynta khatarta masiibooyinka ee dowladda deegaanka Soomaalida uu sheegay xukuumaddu waxay dadaal badan gelisay in la sameeyo qorshe dhammaystiran oo dib u dejin loogu sameeyo barakacayaasha deegaanka oo dhan si noloshoodii hore ee caadiga ahayd ay u helaan qorshahan ayaa waxa ka qayb qaadanaya dawladda iyo hay'adaha ka howlgala deegaanka ayuu yiri Saadiq Cabdiqaadir oo ah wasiir ku xigeenka xafiiska maareynta khatarta masiibooyinka ee dowladda deegaanka Soomaalida ugu dambeyn wafdiga ayaa booqday xarunta caafimaadka oo 95% la dhameystiray iyo iskool ay wax ku bartaan barakacayaashu oo dhammaantood isbedelkii kadib laga hirgeliyay iyo sidoo kale goobaha ay biyaha ka cabaan shacabka barakacayaasha ah ee ku sugan tuulada Qoloji